kulankani oo bilaa isla markaana ay isugu yimaadeen dhalinta koonfur galbeed ee ku sugan magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweynayay qaar ka mid ah ardayda ka soo jeeda deegaanka koonfur galbeed ee soo gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. kulankani ayaa waxaa ka soo qayb galay madax aqoon-yahano iyo ururada bulshada. ugu horeyn Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid ayaa madasha ka hadlay. alxamdulillah rabbiina nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin sallallahu alayhi wa sallam baarak calaa Muhammad. waxbarashada waxaa laga rabaa bini aadamka saddex uga kooban yahay. marka waxbarashada ma dhamaato laakiin waa wax loo baranaa. maxaa loo baranaa? horta qofka bini aadamka saddex shay ama saddex meel ugu muhiimsan waxa la yiraahdo maskaxda ama almukh. waxyaabaha ku saabsan fiiri maskaxda qaybtan wax ku saabsan waa dawlad dhan waay iyo qaybtan afka carabi alwujdaan la yiraahdaa qaybtan waxa alfikra la yiraahdaa almukh iyo wixii inta ka baxsan tasarrufaad waay. dhan kale hadii loo dhigano biology iyo psychology la yiraahdaa. psychology waa tasarrufka bini aadamka, biology waxa waaye waa abuurista iyo bini aadamka wuxuu ilaahay dabiiciga ilaahay uu ku abuuray waay. marka qofkaan inuu wax barta in kana seen ku ogaanayna la rabaa waxbarashadu inay saddex meel ka bedesho. qofka saddex meel laga fiirinaya saddexaas meel haddaysan ka bedelin wax ma uusan baranin. waxaa la rabaa ha fikirkaada inay bedesho. saad u fikiri jirtay intaada wax baranin inay bedeshaa la rabaa. fikir ka duwan waa inuu yimaadaa meesha. labo saad wax u jeclaan jirtay ama aad u nici jirtay ama aad ugu heli jirtay ama aad u difaaci jirtay ama aad u soo dhaweyn jirtay inay isbedeshaa la rabaa. alwujdaan baa la yiraahdaa. laba ma tahay kow saad u dhaqmaadi jirtay gacantan shalaysay u dhaqmaysay maanta waa inay isbedeshaa. lugtan shalaysay u dhaqmaysay waa inay isbedeshaa. ishan shalaysay u dhaqmaysay waa inay isbedeshaa. dhigtan shalaysay u dhaqmaysay waa inay isbedeshaa. intaas lagu qiimeeyaa. mar haddii ardaygii wax bartay berri uu marti u noqdo oday ushiisii haystay geel daba joogay wiligiisii oo meel kale aan tegin fadhi ku dirriiqaana haddii uu kursi la fadhiisto uu ku fikir noqdo sidiis uu u hadlo sidiis uu u dhaqmo say noqonaysaa waxbarashadii nothing wax ma aanan baranin. dhinaca kale qaar ka mid ah ardayda iyo guddoonka jaaliyadda ayaa ayagana madasha ka jeediyey kelimado dhiirigelin ah. hal jaamacad leyma ee kulay jaamacado badan saas mayla raa'is jaamacadan leerow Cavendish University ya mayla raa'is wali xaq helnay mayla raa'is intuuna ka helna maadaama uu dagaalanay ka doomi ku xigeen wali helnay mayla raa'is speaker guud ee jaamacadaas waana mayla raa'is guul ka faraxa koro macna mayla raa'is qodobka saddexaad oo xukuumaddu wala ay qabtay wali kuma dhaa soo dhaweynta madaxda sidoo noogna mayla raa'is madax badan ah deertii dalkan oo in iska jarang mayla raa'is mar walba group aan koo jeena group walba wala yar haajartay mayla raa'is tumun xildhibaan oo hogaamiyo mayla raa'is halka leader ma sha Allah dhamaantiyo la kulungni isu xog wareysani ma sha Allah kulay ardaydana dhamaantiyo kulay in badan la kulumeen oo noo sabayana janta balance kulli dhowr arday hadda inta ku joognaa marka invitation-ka la siinaayna waa wax kooban. marka waxaan isdhahay aga faa'iideyso kulli walaalaha waa isla joogtiin. marka waxaan jeclaan lahaa inaa xafladaas bish 5teeda ay dhacaysaa December 5teeda ah East Africa ay ka dhacaysaa waa maalin khamiis asaan jeclahay. marka waxaan rajayn lahaa inaan nagala soo qayb gashin intii awood inay nagala soo qayb gasho oo xafladaas ay. Cabdiwahab Ibrahim Cabdi TV Koonfur Galbeed magaalada Kampala